dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta halkan ka qalin jibinaysa ee saraakiisha iyo saraakiil xigeenka leh waxaan rabaa hal mid mar walba inay idinku taagnaato qalbigeena ay ku jirto xusuustiina ay ku dheeraato waxa dagaalamay qoray ma aha hub ma aha taangi ma aha madfac ma aha waxa dagaalamaa waa qof waxa dagaalamaa oo guul ka soo hooya goobaha dagaalka waa qof qoriga ma aha qoryo waaweyn rasaas badan taangiyo badan maxaan ku rahaa madaafiic badan waa kaalmo waa tuul la isticmaalo oo askariga dagaalamaya oo isticmaalo haddii askariga meesha ka maqan yahay haddii askariga garaadkiisa uu hooseeyo haddii askariga tababarkiisa uu hooseeyo haddii askariga daacadnimada uu dalkiisa daacad u yahay oo hooseeyo qorogu waxba ma taro guulna ma soo hooyo hubku wax ma taro guulna ma soo hooyo waxa dagaalamay ee Soomaaliya maanta inta xorowday xoreeyay ee ka qaaday cadawga waxa waaye wiilasha iyo gabdhaha Soomaaliyeed waxaan rabaa marka inaad mar walba qalbiga ku haysid adiga waaye ha fiirinin dhinacyaha awa baabihi awa tangiga awa diyaaradii awa magaciisi wax weyn kuma soo tarayso yes waa kaalmo way ku kabay hawshaaday fududeynay waxa soo dhamo qalab ah laakiin qalabka lafsadiisa dada ka dambeeya waxa dhaqaajiya diyaaradda wada hubka rida taangiga wada madfaca rida dhammaan waa dadkiina waa idinka waxaan rabaa marka nin lagu seexdo waa seexan adiga la isku ka haleynaya inaad adiga marka walaxan nooleeno nafi ku jirin oo tuul ah oo loogu tala galay inaad albaabka ku furato maxaan ku yiraahdaa aad ku goosato midida hilibka aad ku goosato kale iyo kashawiitada aad maxaa boolka ku dhuuqsato waaye hubka aad haysataa waa adeega adiga ku adeega haddaadan si sax ugu adeegan laakiin inaad si sax ugu adeegatidna waa inaad aqliga ka adeegtaa dhiiranaanta daacadnimada adkaysiga dhammaan qofay ka suuroobaan qoray kama suuroobaan madfacna kama suuroobaan qalab kasta oo aad u baahantiin maalin walba maalinta ka dambaysa waa ka fiicanna saraakiishiina iyo saraakiil xigeenkiina mas'uulaatihiin waxaad mas'uul ka tihiin wiil iyo gabar Soomaaliyeed oo naftiisa soo qadimay oo inuu dhinto naftiisa u soo qadimay ayaad mas'uul ka tahay wiilkaasi inuu guul keenad mas'uul ka tahay iyo gabadhaasi inay badbaado wiilkaasi uu badbaadaad mas'uul ka tahay oo si maala yacni dhiigiisa aanu u bixinin oo meel aan la filaynin iyo dayacaad adigu awaamir aad bixi weyday iyo ximaayo ilaala aad ilaalin weyday aanu ku dhimanin oo ku dhaawacmin yaa mas'uul ka tahay intaasoo dhan haddana inaad guul keentaanaad mas'uul ka wadatiin naftu maalintay dhici lahayd ay dhaceen quraanka kariimka ahna lagu dhahay qofku markuu dhimanayo saacadna looma kordhinayo saacadna lama soo hormarinayo dhimashadiisa dadaal waa ma reebana dadaal waa halkiisa inaad dadaasho
qatarta iska ilaaliso waa waajib ku saaran waay na wada saaran waay war mas'uulaa tahay qof kastoo mas'uulana wuxuu mas'uul ka yahay waxa loo diray uu mas'uul ka yahay qofkii exceptional oo wixii loo diray waa shaqada loo dirayna darab waa inay guulaysataa waa inay cadowga dishaa wixii loo diray ka dheeri qofkii qabtana waa qof muuqaal dheeri ah dad badan oo danabana waa naga dhinteen dad badan oo xoogga dalka Soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan ana waa naga dhinteen intaan dagaal ku jirnay maxaan maanta oo dhan ugu celcelinaynaa u sheegaynaa magaca Xasan Tuure maxaa magaca Xasan Tuure oo u dhimalaayay marar badan aan sheegaa maxaa magaca Xalane ninka la dhihi jiray Maxamed Cabdulla Xalane waa goorma 60 sano ka hor u dhintay maxaa wili u joogaa magaciisa maxaa Generaal Daawud loo xusaa mar walba ciidanka xoogga dalka Soomaaliya sheegaba la yiraahdo Generaal Daawud loo xusaa maadii Soomaalida maxay ahayd waari meyside warha ka haro magacaagu ha haro magacaagu ha haro maalimaad dhimanay ama goobta dagaalka ku soo dhimo ama sariirtaada dusheeda ku dhimo maalinaad dhimanay yani hoggaanka waxa ugu fiican hoggaanka midka ku daysiga ee lagu daysado dhiiranaanta lagaaga daysado discipliinka lagaaga daysado ammaanada lagaaga daysado sidaasaad waxa ugu fiican askarta kuwa maagayso wax ku tusi kartaa waa sidaas gadaal haddaan iska fadhiisato adma war waa kan kii lacagta badnaa qaadanaya meesha fadhiyaan maxay u waalay inuu yira askariga maxaa diiday marka ku dhex jirto la sheekayso waxaan si gaar ah rabaa marka arintaas inaan xoog u saaro saraakiil xigeenka wadnaha ciidamada oo dhiiga qaybiyo ka rug ku haya idinka waay saraakiil xigeenka waa laga yaabaa sarkaalka inuu maskaxdii yahay laakiin wadnaha labaduba ma kala maarmaan wadnuhu hadduu istaagana qofku uu dhimana maskaxdu hadday istaagtana qofku uu dhimana laakiin haddana midka kale ka maarma male waa isla shaqeeyaan mid keligiis shaqay kara ma laha inta maskaxdu dhimato wadnaha ma shaqayn karo inta wadnuhu dhintana maskaxdu ma shaqayn laakiin saraakiil xigeenku waxay unique ku yihiin waxa waaye khaas ku yihiin askarigiioo la joogaa 30 askari ama 10 askari ama 20 aw la jooga dhex fadhiya waa u jeedaa kan jirrano u jeedaa kan baahano u jeedaa kan boko u jeedaa kan discipliinka xunu u jeedaa kan dhiirano geesiga ah u jeedaa kan aaminka ah oo wax walba lagu aamini karo u jeedaa kan runsheega ah u jeedaa oo xaaladda ka been sheegaynin kan been sheega ah oo in laga dhowrsado rabo u jeedaa isagu sarkaalka ninka u gudbinaya waa sidaas ciidankayga waa fiican yihiin dhammaan laakiin saas isugu jiraan hebel iyo hebel nin la yiraahdo ku jiro iyo heblaayo gabar la yiraahdo oo aamin ah oo shilinkaad u dhiibto hadduu dhimanaya xataa aan taabanaynin berri aad ugu imaanayso hebel iyo hebelaa ku jiro xaaladda aan ka been sheegayn si kasta u kharaartahay sheegaya oo dhahaya waxaanaa yaallo hebel iyo hebelaa ku jiro shantii safarood kala xadayo waxba loo dhiibi karin laakiin laga yaabo dagaalku inuu ku fiican yahay yah inuu dagaalku ku fiican yahay oo geesi yahay aamin ma aha geesinimada iyo dagaalku u adeegso ammaanada ka ilaali waxaa laga yaabaa inuu fulay yahay oo marka xabaduhu dhacaan oo gariirayo isku dardarsoomayo laakiin waxaa laga yaabaa inuu aamin yahay oo waxaad u dhiibtay aad ugu imaanayso meeshoodii oo sidii u yeel aad tiro u yeelayo ammaanada u dhiiba wax u baahan hore dagaalka iyo fooda hore ha u dir iyo meesha geesinimada looga baahan war mudac iyo meliida midba meel ku dadkaaga yaa yaqaano sarkaal xigeenkaa yaqaano ninka unugta xukumaa yaqaano ninka kooxda xukumaa yaqaano ninka laga yaabo inuu taliyahoorinku abaanduulo iyo sarkaal xigeen duruufaha maanta jira yaa yaqaano ma marka qaarkood taliyahoorun inuu yahay sarkaal xigeenkaa dhici dadka idinkaa taqaanaan kala barta wiilasha mid walba markaad tagto baryaha kuugu horreeya waa inaad kala barataa wiilashaada kabacdina aad taliyaha aad sidaas ugu warbixisaa taliyow ha dhinac marin sarkaal xigeenka askarta ha kala jeclaysan ha kala doodooran ha gacan togaalaysan gadaashiisa warbixinta ka warso hadduu maanta inta warbixin ku sii warbixinta ay khalad noqoto oo berri mid kale ku sii khalad noqoto sarkaal xigeenka malaa'ig ma isaga laftiisa yaa qalloocan mugaas waraa istoosiya la leeyahay
wuxuu ku qalluucaya loo sheegay hadduu istusi waayna sideedaba qof aan laga maarmin adduunyada korkeeda ma saarno nin xun waa laga maarmaa sidiisaba waa laga maarmaa qofka meel ku fiican meel ku liita meeshuu ku fiican yahay loo isticmaalaa meeshuu ku liitaa laga leexin midka meel walba ku xun ahlan wa sahlan nabadaada galaa la leeyahay shansi dugsi ma galo waa doqon dugsi ma galo nin caqli lahe meel kasta kuma xumaa karo bini aadana nahay malaa'ig maayin macsuum maayin laakiin nin caqli lahe meel kasta kuma xumaa karo meeluu ku fiican yahay labuu ku fiican yahay haluu ku xun yahay hashuu ku liita hayso meeluu ku fiican yahay ka isticmaal kala shaqeey ku dhiirigeli hashaanna hashuu ku liitana ka waani u sheeg ka waani uga caqli celi dhalinyaro waxaan rabaa markaa habaar dhammaantiis waxaa u weynaa layidhi dhimo duca dhammaanteedna waxaa u weyn dhurow waxaan idiin rajaynayaa inaad dhurowdaan waxaan idiin rajaynayaa maanta albaabka aad gelaysaan kuwii mustaqbal fiican ku gaara waxaan idiin rajaynayaa kuwii caafimaad iyo nolol ku gaara waxaan idiin rajaynayaa kuwii guulo badan oo maanta aan higsanayna weli aanan hayn soo hooya inta maanta la haystaahi ragaa soo hooyay iyo gabdhaa u dhintay u dhaawacmay u curyaamay oo jooga inta noo dhiman kuwii dhammaystiri lahay ayaan rajaynaynaa ilaahay idinkiis inaad noqotaan kuwa forontiga jooga ee aan nasanin ee 2 sano lasoo dhaafay qaarkood taagnaay kuway ku nasan lahaayeen meesha ay joogaan ood ka nasiseenaana hore uga sii soco lahay inaad noqotaanaan rajaynaynaa haddii alla yidhaah aad iyo aadaan idin bogaadinayaa waana idin hambalyaynayaa guulna waa idin rajaynayaa rajo badanna waa idinku xiraynaa iyo amal rajo ayaan idinku xiraynaa rajada biri qurxoon maalmihii wacnaa waa soo socdaanaan dhahnaaye maalmaha wacan rajadeedaan idinku xiraynaa ilaahay ha idin guuleeyo ilaahay ha idin xafido allah idin dhowro aad iyo aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh